الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، walaalayaal ilaahay ayaa inaga dhigay dad muslimiin oo walaala ah. waayo alle wuxuu leeyahay innama almu'minuuna ikhwah. alle ayaa sabca samaawaad inaga soo walaaleeyay, oo walaaltanimada ayaa loo baahan yahay in la ilaaliyo. walaaltanimada ayaa loo baahan yahay maxabo iyo kalgacayl in lagu dhiso. waayo alle wuxuu leeyahay innama almu'minuuna ikhwah fa aslixuu bayna akhwaykum. walaalayaal, walaaltanimada in badan in la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay. waayo nebiga salawaatullaahi calayhi wasalam wuxuu leeyahay: laa taxaasaduu walaa tanaajashuu walaa tabaagaduu walaa tadaabaruu walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin wakunuu cibaadallaahi ikhwaana. walaalayaal, intaa ayaa loo baahan yahay oo nebiga inaga reebaayo in lala yimaado. waayo walaaltanimadu waxa weeye shay aad iyo aad u qaalisan. waayo dadka mu'miniinta ayaga ayaa walaala ah, oo walaaltanimada waxaa loo baahan yahay maxabada nebiga salawaatullaahi calayhi wasalam in lagu dheeho, inaan lis dulminin, inaan lis xaqirin, inaan lisku xadgudbin, inaan aan lis xamanin, wax xumaan aan liska sheegin. walaalayaalow, maanta macal asaf waxaanu arkaynaa in badan oo muslimiin sheeganaya, misena in badan maanta walaalayaal oo dadka mu'miniinta ku xadgudba. waayo walaaltanimada sida ma ahan. walaaltanimada waxuu ilaahay inaga soo amray misena inaga soo walaaleeyay waa sabca samaawaad. walaalayaal, in badan ayaa loo baahan yahay qof kasta inuu ku dadaalo walaalkiisa mu'minka sida u farxad gelin lahaa. waayo nebiga salawaatullaahi calayhi wasalam wuxuu leeyahay oo wanaaga hayasina ayuu leeyahay xataa walaalkaaga mu'minka muslimka ah aad la kulanta asigoo faraxsan. intaa waxay ka mid tahay wanaaga iyo khayrka. inay alle ayaa ina mideeyay. war haddaanu nahay dad muslimiin ah, diinta islaamka ayaa ina midaysay. waayo maanta waxyaabaha aan isku kala soocayna waa maxay? walaalayaal, alle jalla wacalaa wuxuu inoo diidayaa tafaraaruqa ayuu inoo diidayaa. waayo wuxuu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala: wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu. oo waxaa loo baahan yahay xiriga ilaahay sii wada jir inaanu u qabsano, oo diinta aanu ka wada shaqayno. dad mu'miniin dersi wada qaadanayo inaanu noqono. war dad mu'miniin isjecel inaanu noqono. saxaabada radiallahu canhum walaalayaal, waxaa laga soo minguuriyey 3 saxaabi ayaa maalin dagaal ku dhaawacantay. markaa mid baa biyo u qeyliyey, wuxuu yiray biyo. markii biyaha loo keenay, walaalkii kale ayuu halkaa ka maqlay asagani oo dhaawac ah oo ku jiro biyaha laysiiyo. midkii biyaha dalbaday ugu horeeyey markuu maqlay walaalkiisa soodkii, markaa wuxuu yiri walaalkii ayaa iga daran, orod asaga ha loo geeyo biyaha. walaalayaal, markii loo geeyey midkii labaad, mid saddexaad ayaa dhinaca kale kasoo qeyliyey oo wuxuu yiray biyo. midkii labaadni wuxuu yiray walaalkeygii kale ayaa iga daran, asiga ha loo geeyo biyaha, hala siiyo, ha lagu waraabiyo. walaalayaal, saxaabada sidaa ayay isku jeclaayeen. saxaabada sidaa ayay ahaayeen.